قصدي فاستجب لدعائي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد walaalayaal sawiradan sida uga jeedaan halkan waa magaalada degmada Balanballe oo ku taala gobolka Galguduud ee bartamaha Soomaaliya walaalayaal sida la socotaan magaaladan Balanballe waxay ahaan jirtay meel ceel baadiye ah sanadaadkii kontomaadkii ayaa waxa soo degay dad aad iyo aad reer guuraa oo ceelasha biyaha ka cabi jiray dadka ayaa waxa ka dhigteen meel tuulo ah oo ay ilmahooda uga helaan waxbarasho ayadoo markaa deegaanka ku bilaabay kadib markii dawladda dhexe ee Soomaaliya ay dhalatay waqtigii lixdamaadkii ayaa waxaa laga bilaabay in laga sameeyo dugsi hoose magaalada Balanballe dadkii wax ku soo bartay oo ilaa iyo 70aadka wax ku soo bartay waxay ka gaareen maamuladii dalka soo maray oo ilaa 90kii ka jiray jagooyin heer sare balse nasiib wanaag dadka reer Balanballe nasiib uma yeelan inay dalkooda dib ugu noqdaan oo ay wax uga qabtaan dadkooda ayadoo ay kalaftay dhibaatadii ka dhacday 1982 markii cadawga Ethiopia ay ku soo duuleen wadanka Soomaaliya oo ay qabsadeen magaalada Balanballe ayagoo 82 ilaa 88 ay ahayd xarun gacanta gumaysiga ku jirta magaalada Balanballe ma laha facility badan oo xagga waxbarashada xagga caafimaadka iyo xagga biyaha nolosha kalaba intaba magaalada Balanballe waxa ku yaala 3 ceel oo balse mid kamid ah oo si fiican u shaqeyn magaalada Balanballe hadda waxa ka jira dugsi hoose dhexe oo ay ka hirgelisay hay'adda Iqra ee ay leeyihiin dhalinyaro Soomaaliyeed magaalada Balanballe waxaa jirta sanadkii 2006 in dhalinyaro degan waqooyiga America iyo Europe oo u dhashay beelaha ka soo jeeda meesha ay isku abaabuleen inay ka sameeyaan college ayagoo ku guuleystay inay arday dhowr 20 ilaa 40 isugu keenaan degmada Balanballe college ku yaal iyagoo u dhisay wax yar oo aan qiimo lahayn. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا فنخرجك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخشى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تكثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا ليال أنا وحان هاي أرضي عندلا وان هاي markay hore waxaan joogi jiray baadiyaan joogi jiray wax badan baan baadiyo joogi jiray wax badan baan hadana yan jeel ah waxba ma aqoon waxna ma qor jirin wax ilaa waqtiina ma aqoon waxna ma aanan qor jirin markii hore ma haddaas waxa iskale walaalahay noo furay kulleejkan waxbarashada nasiiyo iyagana khayr Allah siiyo oo u ducaynaynaa dhamaantan annagana waxaan ku booranayna aad isugu baraarujinayna inaan dayacno waxbarashadana waan ka faa'iideysanayna insha Allah hadii Allah بسم الله الرحمن الرحيم ولا لي دمنت وان سلامنا انا ولا محمد فرح حسن بن عبد السلام oo ka yimid baadiyo marka waxbarashadayda aan waxna aqoon hadeerna aan soo walaalaha naga waxna barayna Allah khayraasi maanta waxbarashadaysana inaan ka faa'iideysano macnaheedna maanta Allah khayraasi dhalinyarada ayaa halkii labaad oo ay ku dayeen waxay ahayd inay sameeyaan caafimaadka ay wax ka qabtaan ayagoo isku dayay taa ayada waxna ka qabtay MCH ay ka hirgeliyeen magaalada balse sidii la rabay aan ahayn asagoo ay iska kaashadaan dhalinyarada oo bixiya salariga shaqaalaha ku baxa iyo ayada oo ay caafimaadkiisa bixiyaan hay'adda UNICEF
magaalada balanballe waxay u baahan tahay qof walba oo kasoo jeeda magaalada iyo dadka soomaaliyeed iyo dhammaan ummadda muslimiinta ah in ay wax u qabtaan. magaalada balanballe dadka ku nool ayaa hadda aad waxaysan lahayn dugsi waxbarasho, waxaysan lahayn meel caafimaad, waxaysan lahayn waxyaabo kale oo dhan oo bulshada u baahan tahay. sida arkaysaan masquulaha, kolleejooyinka iyo baraagaha aada u liita. waxaad moodaa degmadu inay ka hooseyso degmooyinka kale oo ay la qarniga ahayd ama ay ka dambeysayba. waxa aan ka codsanaynaa dhammaan dadka soomaaliyeed ama ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dadka kasoo jeeda degmada balanballe inay wax u qabtaan degmada balanballe. hay-addan balanballe development association waa hay-ad laga hirgeliyey sanadkii 2006 degmada Leicester ee gobolka bartamaha dalka Ingiriiska. hay-adda balanballe development association ayadana waxaa hirgeliyay dhalinyaro kasoo jeeda gobolada degmada balanballe gaar ahaan ayagoo ugu talagalay inay wax ka qabtaan degmada balanballe una taagan ilaa hadda inay wax u qabtaan. waxaan rajeynayaa insha allah biidnillahi kariim inaad nacaawin doontaan, waxna nagala qaban doontaan, nala arki doontaan dhibaatada ka jirta degmada balanballe. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع